أنا إدين وعي وحنا إدين كويا إن ما دام أتهين ميكروفون كده دوينه شعب كصوماليات إن نرجع السيسان واتقعدان فريمها نربنا إن ندوينه لو ذاقنا شعبك حق وحيوليهين إن أرمها الدلكو ده هالكيمريان ما دحدود مركزته يدولد وذا يقورنتو markaan statement ka dhameeyo su'aaluhuna weydiin furnaan doonaan inkastoo ay tahay saacatul qaanfur oo baahi jirto waxay ku saabsan tahay shirkayga jarayda galabtu ururada aynu qaybta ka nahay caalamiga ama goboleed iyo baaqyadii ka soo baxay istaba joogga inaan halkan kaga jawaabno gaar ahaan kii ugu dambeeyay ee ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika kii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay iyo saaxiibadii waxaan xoogga saaraynaa kii Afrika dowladda federaalka Soomaaliya khamiistii 22 bishan waxay shacabka Soomaaliyeed la wadaagtay dareen ay ka qabtay natiijada shirkii golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee ka socday xarunta midowga Afrika shirkan waxaa shir gudoominayay dowladda Djibouti sidaan hore idinku sheegayna go'aamadii shirka ka soo baxay waxa ku jiray qaar ka hor imanaya madax banaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobada badan marka laga tago saddex qodob aan isdul taagi doonaa shirkan qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa oo qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah ee Afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka sida alla wada socotaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12 Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga ma soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweynaheena laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob oo kale qodobkaanu ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhameystiran ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo dowladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aan rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasuleynin difaaca dalkooda haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Afrika wuxuu u muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya shirka waxa ka soo baxay in loo soo jeediyay ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya ciidamada AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab arrinkaasi koow waa sharci darro mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee AMISOM oo ku cad qaraarka golaha ammaanka Security Council-ka United Nation-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12 March 2021
Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waa hay'adda ugu sarreysa ee sharciyada dunida soo markaa kan Afrika wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee Security Council-ka oo aanu ayidsanahay wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha Soomaaliya ee mas'uuliyad kala wareegidda ciidamada AMISOM sida la wada socoteen ciidamada Soomaaliya labadii usbuuc ee soo dhaafay waxa ku arkaysay inay mas'uuliyaddii kala wareegayaan AMISOM Somali Transitional Plan STCP oo soo baxay Febraayo 2021 duniduna og tahay dalkuna og yahay ra'iisul wasaaruhuna saxaxay ayay qorshahaasna ka hor imanay mar saddexaadka waxa ay gaf ku tahay sharafta qabka iyo haybadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed askariga Soomaaliyeedna ma aha askari waxa loo sheegi karo xitaa arrinkaas golaha nabadda iyo ammaanka Afrika uu soo jeediyay wuxuu taageero iyo hiil u noqonayaa culayskana ka qaadi karaa ururada argagixisada ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed habeen iyo maalin dagaalka kula jira yaa ka dambeeyay warqoraalkan waxa dadaal badan ku bixiyay labadii wadan ee aanu sii sheegnay Khamiistii waa Kenya iyo Djibouti Kenya lama yaabanin oo waa hore ayaan culaaqaad kala qaadanay ninba waxa la yiri ninkii hebel baa ku caynayay muxuu yaayaa col baabanu nahay ina coltiin haduu ku caayisna Kenya lama yaabanin waxaanu isku haynana shacabka Soomaaliyeed oo og yihiin oo waa kiiska badda oo ay leeyihiin ka tanaasula badiina annaguna aan leenahay ka tanaasulimayno waa u dhimanaynaa dhulka yaga manay ahayn runtii qaanuuniyan ama sharciyan ama common sense maskax ahaanba dal aanu sidaa isu haynaa oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo faaqidaadda arrimaha yaga dal aanu sidaa isu haynaa oo xidhiirkii kala goosannay oo aanu maxkamad isula jirnaa inuu tafatire ka noqdo isteedmanada arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo waa nasiib darro runtii marka lama yaabanin iyaga whatever laakiin waxa la yaab kale waxa weeye dawladda Djibouti oo wali ku taagan jidkii aanu uga dignay 4 bilood ka hor kursigan maanta waxaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed u sheego kursigan maanta guddoonka golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika ay ku fadhido Djibouti xubinimada iyo guddoonka waxa lahaa Soomaaliya laakiin waanu u deynay waxaanu dhimay walaalaheen ha fadhiisteen Djibouti baanu u deynay taasaan rabnaa in la wadaagno Soomaaliya xaq u lahayd way soo martay Djibouti Soomaaliyana wali ma qabo kursiga haddana kalsooni iyo walaalnimo aanu dhimay idinku sii wata markay taasi dhacdo markaa maxay ku xasuusinaysaa aniga waxay xasuustay shakhsiyan gabaygii dhowdaan ee garnaqsiga 1974 geedku koraaya baan ninkan bari gantalayay ilaa intay goynayaan gacalkay muday gacantii maroodiga ninkan galab ka sii daayay isna gows libaax igu ridaan gacalkay muday ninkan buurta guladeeda dheer anigu gaarsiiyey ee gunteeda igu celinayaan gacalkay muday halkaa u dhaafi maayo shacabka Soomaaliyeed baan u deynayaa sababta iyo jawaabta iyo su'aasha why maynaan ka yeeleen dawlad Soomaaliyeed in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaalihiin Djibouti never ugu dambayn waxaan wadamada Afrika ugu baaqaynaa inay ka wada shaqeeyaan nabadda ammaanka iyo iskaashiga qaaradooda mushkiladoodana ay ku xaliyaan xeerarkooda iyo axdiyada u degsan waxaanu si cad u sheegaynaa Soomaaliya inaanay kalsooni ku qabi doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay gudoominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn taas oo uu ogolaanayo
qodobka 11aad ee brotokoolka golaha nabadda iyo ammaanka waa kan laftiisa oo si cad u sheegaya inaan meel looga soo wada jeesto go'aanna laga qaato wixii waxyeelaya madax bannaanida dal Afrika markay sovereignty-ga madax bannaanida iyo qarannimada tagto axdiga ku qoran brotokoolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee ammaanka iyo nabaddu wuxuu sheegaya in meel looga soo wada jeesto si loo ilaaliyo madax bannaanida dalka in baarlamaanka lagu xadgudbo ciidanka lagu xadgudbo qarannimada lagu xadgudbo yeelimin laakiin waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay lagu taageeriyay dawladnimada Soomaaliya waxaan ayideynaa wadamadan saaxiibka nahay oo ugu horeeya dalka Mareykanku oo hiil iyo hooba la garab taagan dalka Soomaaliya waxaanu garab taagannahay qof kasta oo abaal noo galay waa garab taagannahay waana ognahay qof kasta oo gaf naga galayna waa ognahay shacabka Soomaaliyeedna waxaanu la hadlaynaa inay ogaadaan marxaladda dalku marayo iyo in xukuumaddu dadaal ugu jirto sidii loo hanan lahaa madax bannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya